liintu asal bay ahayd ma baanayn waxa weeyaan way lahayd may wajaale lafirkeeda dad aadaysa fasax ba baahan tahay ama muqdisho aan tago ama laascanood aan tago waxa weeyaan waxaan ku tagay si awaamir la'aan qolada iga dambaysa waxaan leeyahay liinta xoog ha uga baqina liintu sidii hore uma dhanaana liintu sonkor bay leedahay qaranka Soomaaliland dee tacab baan gashaday ma garatay oo muwaadin baan ahay xaq u leh la xiri karo anytime oo muwaadiniinta kama dugni waxa laga xiray ama waxa weeyaan inaan fasax la'aan aan kaga baxay dalka kulley waxay ahayd iga soo sheeg inaan awaamirta garab maray oo aan fasax la'aan ku qabtay waxa weeyaan meelaha leeyahay may wajaale lafirkeeda dad aadaysa fasax ba baahan tahay marka waxa weeyaan anu fanaan baan ahay fanaan Soomaaliyeed baan ahay meel walba baan tagi karaa ilaahu yuhuud baan ka dhici karaa laakiin waxaan ka dhacayaa iyadoo dawladda qarankayga og yihiin fasaxaasi muxuu yimi fasax la xidhiidha fanaaniinta كل قف والبا وحويان لامب كتر سنة هاي أما فنان هذا أما ورياها هذا وحويان لامب كتر سنة هذه وحويان وفافين تجوكتا أنا صدق كل فنان بان هاي لامب كتر سنة هاي لامب هاي خصيان ما كفس قادني هدي له كده كل ولا أردت ورد اسمه جرته إمك كلية وحويان وحلا يحري أما اللي يعني وحويان أنا فسح الآن عن كجب حيد الكا وأنا لان تدي كفس قادن وأنا يكوس عسين رنج سوملان تعب بان gashaday ma garatay oo muwaadin baan ahay xaq u leh la xiri karo anytime oo muwaadiniinta kama dugni imika waa la soo day xorriyadeeda waa la siiyay waxa weeye arinta inta badan fanaaniinta lagu qabsadaa markay muqdisho tagaan adigana muqdisho iyo arintii laascaanood iyo arintaas dabcan hadal haynta xarigaagu la xiriiraa baa la leeyahay bal ka warantaa taas waa run ama muqdisho aan tago ama laascaanood aan tago waxa weeyaan waxaan ku tagay si awaamir la'aan waa muhiimadu waa taas weeyaan waxa weeyaan meel aan ka xadidanahay ma jirto fanaan baan ahay laakiin awaamirta qarankayga ku shaqeynaya iyagana ka amar qaadanaya fasax anigoo haystaan meel walba la tagaya waxaana la'aantii soo baxeen oo waxa weeyaan hiil iyo hobar ila garab taagnaa walaalkay awaan xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax xildhibaanka ummadda waxa weeye xildhibaanka siyaasaddiisa iyo fankiisaba noogu heeliyay haddaan fanaaniinahay waxaan leeyahay saaxiib noolow waan ku garab taaganahay anaguna waxa weeyaan markasta waxa weeyaan hiil nooga baahato abwaan dooran manan eedin horta runtii waxa weeyaan doorashadii iyo waxa weeyaan hiilkii iyo dadaalkii aan u galay aad baan saaxiibka ugu mahadnaqayaa tankiyo sidoo kale waxaan mahad celinayaa asxaabtiisii oo koow yahay tukaalu soo wakiishay sidoo kale waxaan mahad celinayaa taliyaha guud ee saldhiga madaarka Saalax taliya Saalax waxa weeyaan waad baahsantahay baan leeyahay sidoo kale waxaan mahad celinayaa taliyaha guud ee rugta madaarka saaxiibkay labaala sharmaarke iyo dhammaan ciidankii waxa weeyaan rugta madaarka ee waxa weeyaan goobta igu soo dhaweeyay si wanaagsan yahay sidoo kale waxaan mahad celinayaa walaalkay baabka burco oo isna arintan qayb weyn ku lahaa dhammaan asxaabta aad baan horta waxa weeyaan ugu mahad celinayaa liintu macaan bay sokor bay lahayd qolada iga dambaysa waxaan leeyahay xoog ha u baqina liintu asal bay ahayd ma baanayn waxa weeyaan way lahayd sonkor inay lahaatin bidooniyeen mugta sonkor way lahayd liintu sonkor bay lahayd qolada iga dambaysa waxaan leeyahay liinta xoog ha uga baqina liintu sidii hore uma dhanaana liintu sonkor bay leedahay waxa weeye muwaadinimadii qarnimadan ha la ilaaliyo